السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي وأنا دي سلامي waxaan idin leeyahay ciid mubaarak taqabbal allahu minna wa minkum saalix al-acmaal ilaahay waxaan ka rajaynayaa ciidan ciideeda inuu nabad qab iyo bashbash iyo barwaaqo inuu ku gaarsiiyo iyo ummadda islaamka oo meel kastay joogtaba ilaahay uu gargaaro dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay ciid mubaarak maasha allah tabaaraka raxmaan maanta maxaa inoo waday waxaa inoo waday face mask yaro maasha allah tabaaraka raxmaan inaba caadi ahayn aad iyo aad maasha allah kuun huurinaya haddii aad insha allah isugu dadaashid oo aad marsatid isbuucii 3 jeer maasha allah tabaaraka raxmaan kalarka wejigaaga wuu midaynayaa haddii aad madmadow lahayd kaa biinaya haddii maxay tooday aad daldaloolo maaragtay aad lahayd wejigaaga oo kale finan ku madoobaado kale haaraha oo kale duuduubyada oo kale oo wejiga isduuduubaan biinsada ma la dhahaa oo wejiga kaa galoo kale maasha allah tabaaraka raxmaan waxyaalahaas badan ayuu kaa hagaajinayaa muhiimadu waxa weeye inaad mudaawamo samaysid waayo ma jirto wasfo maanta intaad marsato almost wixiiba kaa kaxaynaysa kolba sidaad ugu sabartaad ugu dadaashid ayuu maasha allah aad ka faa'iidaysaa maaskan markaa waa maask maasha allah tabaaraka raxmaan natural ah waxba haba yaraatee kiimika oo wejigaaga wax yeelaya ama kaa daba imaanaya aan lahayn waayo kiimikada waxay dhibkeedu waxa weeyaan marka koobaad waa xaaraan iyadoo xaaraan ah haddana marka hore waa ku noorinaysaa 7 cisho hore waa kusoo dhaweyne ama marka inta doonto baad wadida waa kusoo dhaweynaysaa maalintaad iska daysid ayuunbaa lagu yaabaa haddaba xitaa marka dambe aanad adoon iska daynin maqaarkaaga wuxuu noqonayaa sensitive wax walba uma adkaysanayo marka intay nafteena wax u tarayna islaanahay inaan dib u geysanin maasha allah marka maski yaro cajiiba maadaama ciidkii laga soo baxay ayaan kasoo tuuranaynaa waxaan u baahanahay kofeega oo Nescafega markiiba dhalaala maasha allah tabaaraka raxmaan waa la yaqaanaa yacni fawaa'ida uu leeyahay jirka iyo basharadaba maxay tooday maskigani kafaygu waa waxyaalo badan ayuu maasha allah tabaaraka raxmaan wejigaaga siinayaa horta marka koobaad lighting buu siinayaa glowing buu siinayaa wuxuu siinayaa haaraha oo kale haddaad mudaawamo u samaysid wuu kaa goynayaa duuduubka wejiga maasha allah tabaaraka raxmaan hadda waxaan soo qaatay hal qaando oo teaspoon oo ah kafee iyo hal qaando oo wax yar dhiman oo maal wardi ah intaas ayaan isku baabi'inayaa haddaad rabtid waad ka badsan kartaa laakiin se anigu waxaan rabaa intay wax hal mar aan isticmaalo haddaad doonto intaad samaysatid ayaad weel nadiifa oo ama dhalo ah oo aad maxay tahay mucaqam ah oo biyo kulul ku dhaqday intaad ku shubato aad fridge-ka qaybta hoose iska gashanaysaa markii aad jikada soo gashaad wax iska maamulanaysaa in yar baad la soo baxaysaa waad marsanaysaa maasha allah tabaaraka raxmaan sidoo kale maal wardiguna aad iyo aad buu ugu wanaagsan yahay basharada maasha allah waa arkaysi waan isku baabi'iyey saa markaan isugu baabi'iyey haddana waxaan u baahanahay inaan ku darsano saliidda garasaliinka saliidani waa saliidda garasaliinka oo ah aan jirka marsano gacmaha iyo lugaha waxaan marsano saliidiisa weeyaan maasha allah markaa saliidda garasaliinka ayaan wax yar ina kaga darsanaynaa maasha allah iyana si fiican ayaynu dhex gelinaynaa cream ayay isku noqdeen soomaa haddana waxaan ku darsanaynaa wax yar oo saliidda lowska ah maasha allah tabaaraka raxmaan saliidda lowskuna wejigaaga waxay siinaysaa qoyaan maasha allah tabaaraka raxmaan aad iyo aad bay basharada ugu wanaagsantahay ama jirka anigu waan jecla badanka waxaan u isticmaalaa xasaasiyadda waayo xasaasiyadday u roon tahay halkaa markaan joogno intaa waad isticmaali kartaa khiyaarkaaga adi weeyaan waayo maasha allah waa arkaysin saas markuu yahay cream weeyaan adoon wax kale ku darin intaa waad isticmaali kartaa haddii aad rabtidna waxaad ku darsan kartaa aloe vera gel
maasha Allah waxaan ku darsanayaa hal qaando oo ah aloe vera gel. Gelkaas ayaan ku darsanayaa. maasha Allah intaas ayaan si fiican haddana iskugu soo qasayaa. Marka gelkan wuxuu sameynayaa uu kaa jilcinayaa. Biyo biyo ayuu ka dhigayaa. maasha Allah haddaad diidayso qoyaankii aad isleedahay wuu kaa dardareerayaa kale aloe verada waad iska dhaafaysaa. laakiin maasha Allah tabaaraka raxmaan iyana waa alaab cajiib oo kale. maasha Allah si fiican ayaan isu soo dhex gelinaynaa. intaas ayaan si fiican u qasaynaa. maasha Allah waa arkaysiin isu soo qabsaday maaskigii. maasha Allah tabaaraka raxmaan yacni aad iyo aad ayaa waxaan kugu yiri alaabtan aad ugu bogaysaa haddaad marsatid. sometimes nafteena inay waqti siino wayaan. ciidkii waa laga soo baxay. hilibkii iyo waxyaalihii waa laga soo faraxashay. marka waxaa la sameynayaa hadda waa waqtigii nafta soo maahan. maasha Allah maaska cajiibka ah ila soo tijaabiya. waxaan rajeynayaa inay ka heli doontaan. fadlan videogan haddii aad ka heshid like iyo share iyo subscribe ta commentiga. intan videoga ku xiga ku kulmayno waxaan idin leeyahay amaano Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.